marka uu qof cudurku ku raago cudurkaasi raagay ee qofka ku dhacay wuxuu keenaa cudurro kale oo barbar socda markaasna waxaa adkaata in qofka laga daweeyo cudurkii hore sababtoo ah waxaa imanaya cudurro isbarbar socda waxaa sidaas oo kale ah haddii uu dal burburo oo burburkuna dalkaasi uu ku raago oo ay daba dheeraato in dalkaasi uu soo kabsado markaasi dhibaatooyinku way fara badanayaan waxaana dhalanaysa marka dambe inay adkaato in dalkaasi lagu soo celiyo dowladnimadiisii iyo nidaamkii dowladnimo ee horay u jiray tusaale ahaan waddanka Soomaaliya waxaan ogeyn in waddankaasi uu burburay sanadkii 1991 waddanka markii uu burburay waxaa dhacday burbur aad u foolxun iyo dagaalo sokeeye iyo abaaro iyo gaajo iyo rafaad iyo qax wada socda ayaa dhacay kadibna waxaa dhacday adigu muddo 10 sano kadib ah in dib loo soo sameeyo dowladnimadii Soomaaliya oo la bilaabo bal in la sameeyo hay-adihii dowladnimada iyo qarannimada in la sameeyo laga soo bilaabo shirkii Carta ee sanadkii 2000 waxaa jirtay dowlad Soomaaliyeed oo magac ah waxaa adkaatay dowladdaasi inay shaqayso oo ay ka shaqayso marka ugu horeysa xarunteedii Villa Soomaaliya oo ku taala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ka bacdi haddana waxaa jiray dowlado kale oo iyakana la sameeyay oo ay ka mid ahaayeen dowladdii Cabdullaahi Yuusuf maxkamadihii dowladdii ku xigtay waxay dowladdii Sheekh Shariif haddana waxaa yimid Xasan Sheekh waxaa ku sii xigay Farmaajo waxaa ku sii xigay haddana Xasan Sheekh dhammaan dowladahaasi waxaa ku adkaatay inay soo celiyaan qarannimadii iyo dowladnimadii Soomaaliya oo si buuxda u hanata shaqada dowladnimada oo markaasina dowladnimada lagu soo celiyo dalka oo dhan oo markaasi amniga la sugo dadkuna markaasi ay helaan nabad ay ku shaqaysan karaan sababtu waxay ahayd dowladihii jiray mid walba waxaa jiray carqalado fara badan iyo mashaakilo fara badan oo ay xallin kari weysay laakiin haddana sidoo kale dowladihii jiray oo dhan waxaa ka maqnaa habkii iyo nidaamkii ay dowladdu ku shaqayn lahayd oo ay ku abuuri lahayd kalsooni si markaasi dowladda awoodeeda iyo kontroolkeeda ee dalka oo dhan ay soo ceshato dalkii wuxuu u qaybsamay gobollo ay ka taliyaan al-shabaab iyo gobollo ay ka taliyaan maamul goboleedyo aan wada shaqayn fiican la lahayn dowladda dhexe waxaana intaa dheer faragelin shisheeye oo dowlado daris ah sida Itoobiya oo kale iyo dowlado shisheeye ah ay faragelinayaan oo ay isku dirayaan maamulada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ka jira taas oo keentay in dowladdii ay dib u soo kaban weydo maantadan aan joogno dalka Soomaaliya wuxuu leeyahay dowlad dhexe oo ka awood badan sidii hore gaar ahaan dowladdaasi waxay ku xoog badan tahay Muqdisho iyo gobollada ku hareeraysan welina waxaa dowladda ka dhiman inay gacanteeda soo geliso gobollada faraha badan iyo dhulka faraha badan ee al-shabaabku ay xukumaan iyo maamul goboleedyada kale oo markaas saddexda ah waa inay jiraan wada hadallo dhab ah iyo niyad wanaag ay dowladdu doonayso inay ku soo celiso gacanteeda gobollada aan ku jirin gacanta dowladda nasiib darrada dhacday waxaa weeye iyadoo ay jiraan kooxaha islaamiga ah sida al-shabaab iyo daacish oo labaduba ka howlgala Soomaaliya iyadoo ay jiraan dhibaatooyin dhaqaale oo baahsan ayaa haddana dowladdii dhexe ay awoodi la'dahay in ay wada hadallo dhab ah ay la gasho xoogaga waddanka ka jira
gaar ahaan ismaamul goboleedyada oo la doonayay in dowladda iyo ismaamul goboleedyadu ay si dhaba u heshiiyaan. taasi waxay keentay inay daba dheeraato in Soomaaliya weli ay sii ahaato dal qaybsan oo fashilan oo aan tabar lahayn oo aan dalkiisa xukumin oo aan cashuur qaadan karin oo adeegyadii dadweynaha aan samayn karin oo dadka Soomaaliyeed aan shaqo u abuuri karin oo deganaansho aan samayn karin. iyadoo ay saa jirto ayaa haddana xukuumadihii dalka soo maray waxaa lagu eedeynayaa musuqmaasuq baahsan, tabar xumo, abaabul xumi, cadaalad darro, nuglaan dowladaha shisheeyaha loo nugul yahay sida kuwa deriska ah oo kale, sida Itoobiya oo kale oo aad loogu nugul yahay oo waxay dhahaan aan yac la iska dhihi karin. weliba waxaa intaas dheer in iyada oo dalku uu xaaladda ku sugan yahay oo dadka Soomaaliyeed ay dhibaataysan yihiin oo aanay shaqo haysan oo cunto haysan oo guryo haysan oo deganaansho haysan, ayaa haddana madaxda xukunka haysa waxay had iyo jeer ka shaqeeyaan inay xukunka sii haystaan oo ay xukunka iska sii joogaan xataa iyaga oo dalka aan waxba ka bedeli karin. marka dhibaatooyinkaasi faraha badan ee dadka Soomaaliyeed haysta waxa ay keeneen in dadkii uu nafla caari noqdo, in dhalinyaradu waddanka ay ka haajiraan oo ay nolol u raadsadaan wadamada dibadda, oo markaasi dhalinyarada Soomaalidu afarta bayna jiho ay u kala qaxaan, kuwa Yurub aada, kuwa Mareykan aada, kuwa Aasiya aada, kuwa Koonfurta Afrika aada, kuwa wadamada kale ee Afrika aada. meel walba oo adduunka ah dhalinyaro Soomaaliyeed baa ku dayacan. waxaa kale oo dhacday in dadkii gudaha joogay ee aan qixin iyaguna ay barakacayaal yihiin. dad fara badan aanay haysanin nolol, dad fara badan aanay haysanin daawo, dad fara badan aanay haysanin waxbarasho, dad fara badan aanay shaqo haysanin, noloshu ay adag tahay, abaaruhu ay badan yihiin, barakucu fara badan yahay. iyadoo ay saas tahay haddana madaxda iyo siyaasiyiinta Soomaalida, kuwii hore ee wax soo xukumay iyo kuwa soo socda, waxaa laga yaabaa niyadooda inay ku jiraan meeshaan iska joog, haba ka tegin. xukuumadihii hadda u dambeeyey sida Xasan Sheekh iyo Farmaajo oo kale, iyaga oo waxba tari kari waayey oo mid walba xilligii uu xukunka hayay uu waxba soo kordhin waayey, ayaa haddana intaa waxay ka shaqaynayaan inay xukunka iska sii joogaan. labadoodaba xilligii Xasan Sheekh iyo xilligii Farmaajo mid walba wuxuu isku dayay inuu xukunka sii joogo. xilligii hore ee Farmaajo wuxuu isku dayay inuu xukunka ku sii joogo isaga oo ku dacwoonayo inuu qabanayo nidaamka doorashada ee qof iyo cod. nidaamkaas oo ah nidaam haddii si dhaba aan looga shaqaynin la xadi karo doorashada, oo markaasna ninka madaxweynaha ah uu iska sii joogi karo. waxaana nidaamkaasi qof iyo codka ah ee la xadi karo ku jooga madax fara badan oo Afrikaana oo ay ka mid yihiin ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle, madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, madaxweynaha Rwanda Paul Kagame. nimankaasoo dhan 5-6 jeer bay doorashada isaga soo noqdaan. sababtu waa maxay? waxay qabanayaan doorasho qof iyo cod oo baanbeena oo guddiga doorashada iyagu ay leeyihiin oo wixii soo baxana iyagu hadhow ay ku soo baxayaan. noocaas oo kale ayay madaxda Soomaalidu doonayaan inay qabsadaan. sheekadaasna waxay ila tahay waa la isku fahansan yahay. marka waxay ila tahay siyaasiyiinta Soomaalida waa inay dadkooda u naxaan, waa in haddii doorasho ay qabanayaan ay qabtaan doorasho xor iyo xalaal ah oo guddiga doorashadu ay dhexdhexaad tahay oo wada ogol ah oo heshiis lagu wada yahay. taas ayaa markaasi dadka anfacaysa, dalkuna uu ka heli lahaa deganaansho. marka waxyaabaha la qaban hayo waxaa ugu horeysa nabadgelyada. nabadgelyadana waxaa lagu heli karaa marka dawladdu ay gacanteeda soo geliso dalka oo dhan, ama dalka ay ka jiraan maamullo iyo dawlad dhexe oo is-ogol oo ayna ka dhaxaynin gacan ka hadal iyo dagaal uusan ka dhaxaynin. markaasi waxaa la abuuri karaa xaalad dadka Soomaaliyeed ay ku ganacsan karaan oo ay wax soo saari karaan oo wax soo saarkooda ay dhoofsan karaan oo dalka gudihiisa ay ka ganacsan karaan.
markaasi waxaa abuurmaya fursado shaqo oo markaasi dhalinyaradu ay shaqo helaan, ganacsataduna ay faa'iido helaan, dawladduna ay canshuur uruursato, canshuurtaasna dawladdu ay ka samayso howlaha adeega ee dawladdu ay u qabanayso dadka oo ay ka mid tahay waxbarashada, caafimaadka, kaabayaasha dhaqaalaha iyo daryeelka waayeelka iyo dadka xanuunsan. haddaba maanta waxaasoo dhan ma jiraan. tusaale ahaan xukuumadda hadda xukunka haysa waxay xukunka soo haysay ku dhowaad 4 sano. 4taas sano dawladdu way isku dayday tusaale ahaan inay la dagaalanto al-shabaab oo amniga ay wax ka qabato, laakiin dawladdu way ku guuldareysatay. dagaalkii dheeraa ee al-shabaabka lala galay ee la rabay al-shabaabka in laga xoreeyo gobolada dhexe ee dalka si markaasi al-shabaabku ay ugu soo hadhaan koonfurta oo markaasna hadhowna xoogga la saaro koonfurta oo keli ah. dadaalkaas dawladdu way ku guuldareysatay sabab kastaba ha ku dhacdee. taasna waxaa la dhihi karaa dawladdu qorshaheedii kuma guulaysanin. haddaba waxaa muhiim ah dawladdu wixii ay isku dayi kartay way isku dayday. dawladdu waa ay samaysay wax kasta oo ay rabtay inay samayso, laakiin tabarteedii ayaa halkaa dhigtay. marka waxaa muhiim ah in hadda dawladdu iyada oo sidaas ah oo wax badan qaban kari weyday in ayna isku sii dayin inay xukunka xoog ku sii haystaan ama xeelad ku haystaan. oo tusaale ahaan arrinta ku saabsan doorashada qof iyo cod waxay ila tahay xilligeedii lama gaadhin. waa in meesha laga saaraa gebi ahaanba. waa in teendhadii lagu laabtaa, sidii loo soo xuli jiray xildhibaanada loo soo xulaa, dabadeedna lagu kala calaf qaadaa doorashadii dadbanayd ee teendhada. nidaamkaasi doorashada dadban inkasta oo aanu ahayn nidaam fiican oo hufan, haddana waa kan ugu dhow ee xagga deganaanshaha iyo qori isu dhiibka Soomaalida keeni kara weeye. waa nidaam keenaya in aan doorashada la khiyaamaynin. xildhibaanadu si kasta ha ku yimaadaane codkooday dhiibtaan, dabadeedna waxaa soo guulaysta ninkii codkooda hela. marka dawladda hadda jirta waxaan kula talinayaa in ay dib ugu soo laabtaan doorashadii dadbanayd ee xukuumadda hadda haysa iyaduba ay ku timid. sababta oo ah xaalad kale oo taa ka duwan oo hadda la samayn karo ma jirto. doorashada qof iyo codka ah xagee lagu qaban? sababtoo ah dawladdu waxba kama aanay qabanin arrimihii amniga, dalkii ma aanay wada xoraynin, gobolada Soomaalidu isma waafaqsana, maamul goboleedyo badan baa dawladda ka soo horjeeda. haddaba xagee lagu qaban? xaafado Muqdisho ka mid ah miyaa lagu qaban oo keli ah oo weliba iyaga laftooda aan la isku raacsanayn? arrinta ku saabsan madaxweynaha Mareykanka Trump oo moodo in hadda baryahan uu Soomaalida daba dhigtay. sababtu waxaa weeyaan wuxuu arkahayaa dhibaatada Soomaaliya taala ee muddada dheer jirtay ee 34 sano socota ayuu arkahayaa. waxaa kale oo arkahayaa dad fara badan oo Soomaali ah oo Mareykanka degay. dadkaas oo Trump uu arko inay yihiin dad aan taageerayaashiisa ahayn. Trumpina wuxuu caan ku yahay inuuba kala qaybiyo dadka Mareykanka ah oo uu u kala qaybiyo dad isaga la jira oo uu u yaqaan dadka Mareykanka ah iyo dadka mucaaradka ah ee tusaale ahaan taageera xisbiga dimuqraadiga ah, kuwaas oo Trump uu u arko dad cadow inay yihiin. marka wuxuu ogaaday in dadka Soomaalida ah ay taageeraan xisbiga isaga ka soo horjeeda ee dimuqraadiga ah. sidaas daraadeed ayuu Soomaalida u coleysanayaa oo uu isleeyahay kuwan waxba kama faa'iideysid ee la dagaalan waxaad yeeli kartana yeel. muhiimaddu waxaa weeye cayda Trump waa inay dhiirigelin u noqotaa Soomaalida. waa in markaasi dadka Soomaaliyeed ay ka shaqeeyaan sidii u soo ceshan lahaayeen haybadii iyo sharaftii iyo qarannimadii dalkooda inay ka shaqeeyaan. waa inaan laga cadhoonin cayda Trump. cayda Trump waa inay keentaa in dib looga fiirsado aqliyaadkii iyo fikirka Soomaalida oo markaasi meesha laga saaro khilaafaadkii siyaasadeed, qabyaaladda Soomaalida dhexdeeda taala, khilaafaadka aan dhamaadka lahayn, muranka iyo qajajacda dhexdeedna taala. waa in Soomaalidu markaa meesha laga saaro. waa in qof markuu ku caayo dhiirigelin bay ku noqonaysaa caydiisa.
sababtoo ah khaladaadka iyo ceebahaaga baad ogaanaysaa. dee Soomaalidu ceebaheeda waxa ka qabato, ha iska daysa qabyaaladda, iskala qaadka, dagaalka Soomaalida dhexdeeda ah, is-cunsuriyeynta, isna caybka. Soomaalidu meesha ha ka saarto. madaxda Soomaaliyeedna ha u soo jeestaan in ay ka shaqeeyaan deganaanshaha dalkooda. dhammaan maamulada jira heer gobol iyo heer qaran waa inay qabtaan doorashooyin xor iyo xalaal ah oo dadka Soomaaliyeed ay ku qancaan oo ay raalli ka yihiin. arrinta ku saabsan ninkii tuula haystaba inuu yiraahdo tuuladeeda lagama qaadayo ilaa yawm alqiyaamaha, waxaas aqli ma aha, waana dhibka ina haysta. kii qaranka haystayna inuu yiraahdo doorasho qof iyo cod aan qabsan, waa doorashada ay qabsadaan Yoweri Museveni oo kale oo hadda ku gaboobay si xukunka u joogay. doorashooyinka noocaas Soomaalida kama shaqeynayaan. Soomaalidu waxay u baahan yihiin doorasho dimuqraadi ah oo xor iyo xalaal ah oo lagu kala adkaanayo codka dadka, oo si dhaba loogu kala adkaanayo sida Kenya ka dhacday oo kale. sidaas oo kale Soomaaliduna u baahan tahay. aad iyo aad baad u mahadsantihiin.